سلام كدب بلشدة كنا قبل كبنادر مانتي سوق صوب هاي هالكان أكاديمية بوليسكا وأنا كم هذا علينا يا سيدا أي موجين درين كودا كوادن دهذا ده حنون كبندات كده هذا سيدي لباتك ديسمبر إكس كنترول أفقوي ولا ليال مدن يال يمروين وحن يدلوا وذاك النادرين كينا وحن إذا كلامنا يا حنونكا وعنو تاجنا أي هرمر كينا مالين أي هبين حد الله يدمو كما هرد دون ركوع أبد كينا أي عيد مدن سداس أقلي وأنا كهذا اللي أرنتاس أو حنري ما المينينو ما أوينينو وأنا أرسنين ولا ليال مدن يال يمروين بورك قداشي إذا كنت جنا واحد موجنا يا هذا ده حنون كبدنيت أي كردين عدوج ومدة الصوماليات مالنتي سبتدا هيد إكس كنترول أفقوي ولا ليال واحد أكتهين ضمير لاويا شاسي إن أيهين وكيلو دل كان أجوبة عدو شيشاية دنها عدو شيشاية أي فليان وأدت أنه عقل له أن تكون هين أقول له ربا إني نقلدان ما في ليو إنك أقبلينه وهو إنك أقبلين وحين الليهين تركضوا عدو جين إلى بان إذا كنت أريه مرون بارنتاس وحليه وعقر حني وأندلني هو ذلك كسود دولي أو كوليا تركيا أنه قرش مليون مئة فهن مليون مئة أنه قبتين جوجني يوحي أن أركيني أيو لوغا شاكينا يا إساقو هودك كجرة على الدار مركزو ليه تركيا كسود دوشة دلكا ما تركيا لاميغا نودسيسي كان بكا داوينيسي كان باهانا قودنيسي ميا كسود دولي مسح على الدار إيا كوا إساقا صدري أيا كسود دولي سؤال شاس جوابتي هذيك على ذيك الربا ولا ريال ومدان على وديد واموقتا منعها إني كرجران ويدو عدو جدا يسحب كت وعند جعلان لها إن الدرين كينا إلى وذاكتان تركضو مركان باهني وين قوديين مركان بوكنينا وين الداويين مركان بربرنينا وددين لو ديسايين تركضو مركي عيال كينا لسوا خلدي أي إنجنير ردو أقوى يهندو أي دلين نجمع أرسنة كويني لدنتي كويني لدعوامي أي أصدرين ديارات دو أي دقاتير هدي أن دعوامه كان ديارات يصدره داود أي كأنه دقاتير تأي كأنه دلكيس إيجيه مع عدوي جميع وحلو بهاي عقل وإنه وشقيه ضمير تأي عقلك وهي أنجرين وإن الإسكندي ذا الربع وها أي شيء جايان وحلا أقبلك رمية وها أي ربان إن يدت كان غير مجالك وعبرتي وحكلا جرنا يكون خلدان فالإله إذا كل دارية دقيسته وحي حمينا يان دين كيني عقيدتنا السليم كا مركز سيك دقايان دعدي اكس كنترول افقوي هي دعدي زوبة هي تيكا دعدي قبل كبنادم هي دعدوي كلا لمتكاها ان دينتين نقبطو او ساسو اي في عنتها اي نو شيغايا تاسو مسحة إلهي سبحانه وتعالى ددك أنان عقل ووسي dhibaato badan ayayna soo joogeen
dhibaataduna ayadaa garasho dheeraada keenta maantay waxaan hubaa inaan kala garan karno kan cadowgeenna ah iyo kan saaxiibkeena waa maalintii aan si mid ah far mid ah aan ku tilmaami lahayn cadowgeenna walaalayaal maantay waa maalin runtii ka astaysan maalmaha kale oo bulshada Soomaaliyeed ay xamili weyday adkaysan weyday baktiga iyo dacayaadka iyo waxyaabaha aan la aqbali karin ee cala dheere oo hawdka kula jira oo soo faray ummadda Soomaaliyeed waxa la barjaraya oo la baabi'inayaa waa cududoodii waa dhaqaalahoodii waa aqoon-yahanadoodii waa dhallinyaradoodii kuwa sidaas ka shaqaynaya waa inaan u midowno waa inaan aragti mid ah ku wajahno intii koox naloo dili lahaa ee aan ku sugi lahayn gurigeenna ilaa qaraxa gurigeenna ugu keenayaane waa inaan annagu meesha ay joogaan ugu tagno haddii aan leedahay dadka wax bartay dadka hantida leh waxaan rabaa inaan u sheego kan wax bartay inuu dadka u sheego cadowgiisu inuu al-shabaab yahay inuusan ka baqan midka hantida haysta handadaadda lacagaha baadda ah looga qaadaya waa inuu iska diido waayo ubadkooda ayaa lagu baabi'inayaa waxaad adiga og tahay maanta haddii laga qaado berrito ubadkaaga in lagu baabi'inayo in aad bixisaaho soo doqonnimo maaha arrintaas arrintaas ayada ah waa arrin aan la aqbali karin waa arrin loo baahan yahay haddii aad baqi jirtay mar oon in dhiiridaada geesinimadaada in laga daba tago waxaa loo baahan yahay cid kasta oo ay baadi jireen kooxda maafiyada ah inay tiraahdo aniga baad damba maya inaan dhinto iyo inaan noolahay waa mid ilaahay u gaara laakiin baad aniga laygu baabi'inayo gurigayga lagu baabi'inayo ubadkayga lagu baabi'inayo ma bixinayo ganacsatada sidaasaan ka rabnaa haddii rabbeedmo garabna waa ku siinayna waa kala shaqaynaynaa dadka wax bartay macallimiinta jaamacadaha macallimiinta dugsiyada qur'aanka iyo kuwa dugsiyada iskuullada waxaan ka rabnaa inay bulshada dhallinyarada inay wacyigeliyaan ayna kala baraan saaxiibkooda iyo cadowgooda saaxiibkee waxa ah marka aad liidato qofka wax ku taraya abwaan Soomaaliyeed wuxuu yidhi ninka maalintaad tabar yareed timaha kuu xiiray iyo kii ku kala tuuray waad kala taqaanaa marka dadka Soomaaliyeed waa dad maantay fahmi kara يعني cadowga iyo waxa uu u geystay balse waa xilligii bulshadaanu ay dhiirigelin lahaayeen ciidamada ka shaqaynaya difaacooda iyo amnigooda weelasha jooga difaacyada furimaha ee militariga ah haddayan hor fadhin lahayn kuwa sidaan u dhaqmaaya bal ka fikira maxaa dhici lahaa ma suura gasheen
kuwa hadda wax baranaya inay wax bartaan ma suura gasheen bukaanka in la daweeyo ma suura gasheen in xafiisyada laga shaqeeyo adeegyada bulshada loo fuliyo ma suura gasheen waxaasoo dhan way qarribi lahaayeen sidaa darteed si aan adduunka kale u baabi'iyo Soomaaliya shacabkeeda ay hortaagani aan horta asaga ka takhaluso ilaa adigu dhaaray wax la aqbali karo ma arrintaas intay naga takhalusin waa inaan ka takhalusno dal walba wuxuu leeyahay dawlad maamul shaqaynaya mas'uuliyadka amniga mas'uuliyadka horumarka waad ogtiin cadowgan tabaryaradii iyo burburkii dalkeena ku dhacay ayaa u sahashay cadowga inay soo galaan oo ubadkeena ay qaldaan ay hooyadii iyo walaalihii iyo dalkooda ay ku soo diraan waxay gelin dheeraada ayaana la ka rabaa haddii alla idmo walaalayaal maantay waan idinla wadaagna dareenkiina mana idin gaari doono ee waan idin horkacaynaa haddii alla idmo kuma ekaan doono intaan waxaan idinkugu imaan doonaa degmooyinka aad degan tihiin waxaan qayb idin kala qaadan doonaa haddii rabbi idmo soo sheegista iyo soo qabashada cadowga waxaan rajaynayaa arrintaasi inay si buuxday noo bartay waxa cadowgeenu uu ka dhigan yahay iyo waxa saaxiibkeen uu ka dhigan yahay intaas ayaa rabay inaan idhaahdo wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh